xaflad siyaarsare loo soo agaasimay oo maanta lagu qabtay degmada Garadaga gobolka Sanaag ayaa waxa loogu hambalyeynayay laguna soo dhaweynayay madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici waxaana ka soo qayb galay maamulka iyo mas'uuliyiinta degmada cuqaalooday dhaqameed haween dhalinyaro iyo dadweyne kale munaasabaddan oo ahayd mid la isku arkay ayaa ugu horeyntii waxa ka hadlay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee degmada Garada Sahal Maxamed Ismaaciil gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbigaasi Qadiijo Caabi Cabdulle xidhibaano iyo mas'uuliyiin tiro badan waa soo dhamaantoodba ugu duceeyay madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa in Ilaahay ku asturo xilkaasi loo igmaday waxaana hadaladoodii kamid ahaa madaxweynaha cusub iyo madaxweyne ku-xigeenka Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo Mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici oo ah madaxweynayaasha ku guuleeyay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ku guuleystay tartankii aynu hadda galnay ku-xigeenka waxaan leenahay hambaliyo Allah idinku garab galo xilka culus ee aanu adeyn igmanay iyaga intaas baan leeyahay marka xigta waxaan u mahadcelinayaa shacabweynaha Soomaaliland gaar ahaan ka xisbiga kulmiye ee sida mugayay miisaan kale ugu soo baxay doorashadii 13 November همبليان لهاي وحن إلهي ورجينا يا سبحانه وتعالى إن هو حلك وذا كجرب قاله إلهي وحن وقبرينا ما دام أيتها مناسبة إنه كوهم بليانه مدحوينها عصبية مدحوينها كحجانك وحن همبليا ذا أنو أدرى إنه دمام شعبي جسوم الله ملك استبعد شوقي مدحوينها أي مدحوينها كحجانك كانوا وحن إله وقبرينا حلك وذا إن إلهي لا قرب قبته أو أي نقدان كوي سومالي لام برواق يبش كارسية إلهي بين الصلاة وقبرينا وحن لنا هاي مدحوينه يمدحوينها كحجان dad kan Soomaaliland waxay idin doorteen qodobka koowaad cadaalad iyo isla xisaabtan iyo horumar guusha aynu guulaysanay waxa la doonayaa inayna seexano weynagii ku guulaysanay shoodkii weynagii ku guulaysanay guushii weynagii helay codkii weynagii helay inaan la orane hawshu wali wax ogadii buu yiri hawlka badalooyin wali wax ogadii madaxweyne ku xigeen waxa jirtay in aynu ahayn xisbiyo qaran oo ay tartamayeen maalin bay ahayd oo xisbiyo tartamaya ahayn maanta waa laga soo wareegay oo waxay maraysaa in aad noqoteen madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenkii dad wixii idin doortay iyo wixii aan idin dooran dinka madaxweyne waa taa la idin fari maayo ay maadeen wadan nabada Ilaahay ka tagaan wadan nabada oo hodana bay yimaadeen insha Allah mid ka sii wanaagsan bay ka tagi doonaan sidaas aynu ugu ducaynaynaa iyaga madaxweynihii hore Axmed Maxamed Silaani meel wanaagsan buu salaamaynaa waa hambalyeynaa waa sabootiyeynaa Ilaahay rabbigay fi aqrab waxrona ku siiyo qalbeed baad u roonayde Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Saylici waxaan farayaa waar bari waynu sugaya Saylici iyo xigeenkiisa Muuse Biixi Cabdi iyo xigeenkiisa saasan ku hambalyeynaya gabagabadiina waxaa hadalka qaatay gudoomiyaha degmada Garada Mudane Faarax Aadan oo munaasabadaasi soo xidhay waxaan hambalyeynaa dhammaan dadka xisbiga kulmiye ee soo saaray madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaan kaloo u hambalyeynaa dhammaan bulshooyinka reer Soomaaliya meel kasta ay joogaan baan u hambalyeynaa waxaan si gaar ah ugu hambalyeynaa bulshada reer Sanaag iyo kuwa reer Garada waxaan leenahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin sidii wanaagsanayd ee nabadgelyada lahayd ee dimuqraadiyadda lahayd ee hufnaanta lahayd aynu doorashada u galnay Faraxaaji Cabdi Nuur telefishinka caalamiga ee Home Cable TV degmada Garada